xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ayaa munaasabad soo dhaweyn u sameeyay isla markaana ku maamusay ururada Samatalis, Iftiin iyo Haldoor oo maanta si rasmi ah ugu soo biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. ururadaas oo qaarkood ay ka soo hordiga rogteen xisbiyada sida weyn u loolanka adag uga dhaxeeyo xisbiga UCID ee kulmiye iyo wadani. munaasabadan oo ahayd munaasabad ka duwan munaasabadaha kale isla mar ahaantaasina ay hoolka soo baradhaafiyeen taageerayaasha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiga UCID ahna musharaxa madaxweyne ee doorashooyinka la filayay inay ka qabsoomaan Somaliland Engineer Faysal Ali Xuseen Faysal Ali Waraabe oo ururadaasi ku qaabilay si habsamiya isla mar ahaantaasina ku maamusay soo dhaweyn. haddaba barbilo munaasabadaasi waxaa ka hadlay oo halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Maxamed Aadan waxaanu yidhi waxa xafladan qiimaha iyo qaayaha badan maanta aan u qabanay saddexda urur ee Haldoor dhalinyarta aqoonyahanka ah iyo ururka Iftiin iyo ururka degmada Maxamed Mooga ka dhisan ee dumarka Samatalis. xaflada qiimaha iyo qaayaha leh iyaga aan u qabanay degmooyinka ka soo qayb galay ee caasimada magaalada Hargeysa dhammaantood iyaguna dhalinyarta loo qabtay xaflada ka soo qayb galayna aad baan halkan mahadcelin uga jeedinayna oo ay ka hadleen dadweyne aad u tiro badan oo isla mar ahaantaasina madax ka ah xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaa dhankooda iyana waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka gobolka Maroodijeex Siciid Maxamed Yuusuf iyo gudoomiyaha garabka haweenka Xaliime Cumar Raage. dhammaantoodna waxay soo dhaweeyeen gacmo furan ku soo dhaweeyeen ururadaasi ku soo biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyadoo halkaasi ay ka hadleen mas'uuliyiin aad u tiro badan ayaa dhankooda waxa halkaasi hadal ka jeediyay aqoon-yahan Cabdifataax Ismaaciil ahna garyaqaan ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo hadal isagu halkaasi ka jeediyay. dhinaca kale waxa halkaasi yana ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii iyo sidoo kale gudoomiyaashii ururada Samatalis, Iftiin iyo Haldoor balse waxa halkaasi xusid mudnayd oo dadkaasi soo jiidatay isla mar ahaantaasna shucuurteeda halkaasi ka muujisay Najaad Axmed Ismaaciil oo ka tirsanayd ururka Samatalis waxaanay hoosta ka xariiqday in Somaliland u baahan tahay oo kaamiye cadaalada dhankiisa waxa halkaasi hadal ka jeediyay xogayaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ismaaciil Cabdi Daahir waxaanu sheegay heegsiga iyo himilada xisbiga cadaaladda uu leeyahay waxaa isna halkaasi ka hadlay oo hadal ka jeediyay gudoomiyaha dhinaca ololaha Engineer Axmed Xisi Ducaale waxaanu sharaxay muhiimadda ay ururadani ku soo biiray u leeyihiin xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaanu sheegay gudoomiyaha dhanka ololaha xisbiga UCID in ay bedelkooda yihiin xisbiyada kulmiye iyo wadani oo iyagu bulshada horkeena siyaasiyiin dhowrsano xilal ka soo qabtay Somaliland. waayo maanta waxa ogtiin xaaladda ay ku sugannahay xaaladda maanta ay ku sugannahay ma aha mid ay isdhiganno ma aha mid ay ku sii jiri karno ma aha mid ay ku sii dulqaadan karno maanta waxaynu doonaynaa inaynu si salmiya oo nabada aynu isbedel weyn u samayno oo aynu codkeenna ku bedelno dhaqanka maanta jira. muuse biixi cabdi u yeedhay ayaan doonayaa annagadooda inaan u yeedho iyo hablahooda iyo dumarkooda inaan u yeedho dadkooda aqoonyahanka Soomaaliya
intii munaasabadani waxaa soo gabagabeeyey oo halkaasi hadal ka jeediyey gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe waxaanu sharaxay himilooyinka uu leeyahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo dhabaha toosan ee uu horseedi doono qaranka Soomaaliland. walaalayaal anigu maanta inagu kala doorta inaynu dal noqono sharaf leh oo baasaboor leh oo PhD leh oo dhaqaale leh oo scholarship bixin karaya oo dadkiisa qabtanaya iyo inaynu saas ku meeraysano habar ya reeheben kolban halka soo fariiso inaan ducaytanto mulaaqa ku kala tashada waxay nageedana waxa soo dhan musharaxiinta kulmiye iyo wadani labadaba waa isxarta waa hog وهذا اللي نفرق هذا الصبح ولا نفرق لا إله سبحانه وتعالى رد لي شيء أمر صاحب الله ولا والنهي لكن ما وضع كرم ما أنا هذا الصبح أنا دخل وقتي رد لي شيء وأنا وش ما تقول على جال لا نمدل يا تقيل قالوا شو ما هذا بابا يستح كما تقول ما أنت ذلك إنجليز كانوا شيلوا إذا أبو فرس الصبح وان تاجر واحد هذا الصبح هذا كتير زيك كلام بينهم وخالد يوسف حسن خالد فانتاستيك تلفزيون كعالمي الصومالي نيوز هرقيساء